السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال إذا لهانتين بأمير والبواد شوكتان وأنا جو نستحى محمد دوره ما أنت وحن ربعنا هالكان إنكو سو قد بيو سي عاد وقت جاجا عاد مارين لهيد مركان كلها هاي إن الوقت جاجا ماريسه وقت جوا لجوا مارمان قف عن وقت جا كحساب تبينه وح وكنا ليهبا ونرل جيرد عيادان تايان ده كرنا qof walba oo koonkan dunida korkeeda saaran waxa uu haystaa 24 saacadood ama hadii aan si kale u dhigo 1440 daqiiqo ayuu haystaa ama 86,400 ilbiriqsi habda sidaa u garanaysaan qof walba marka sidee looga doonayaa inuu waqtigiisa u maareeyo halkan waxaan kugu hayaa si aad waqtigaaga u maareysid waa inaad raacdaa 7 arrimood oo aan inii sheegi rabo midda koowaad horta marka hore aad waqtigaaga maareynayso waxaad ku xirnaanaysaa Ilaahay ku abuurtay marka aan ku leeyahay Ilaahaygii ku abuurtay waa inaad ka soo baxdaa waajibaadka uu ku faray 5 waqtina aad tukataa markaas wax kasta oo aad sameynayso way ku fududaanaysaa sidaas ayaana guusha ku gaaraysaa midda labaad waa in aad degsataa jadwal adiga ku gaar ah oo aad ku qorataa wixii markaas aad isleedahay waa muhiim oo aad uga hadlaysid jadwalka soo qaado waxaad ku qoraysaa 7 maalin ama wiigiiba hal mar ayaa jadwal degsanaysaa maalin walba wixii aad uga hadli lahayd ama wixii aad qabsan lahayd ayaa ku qoranaysaa marka aad ku qabsato oo aad jadwalkaas degsato waxyaalaha sida u kala muhiimsan yihiin aad ugu qoraysaa tusaale ahaan markaan ku dhaho waxyaalaha waxaad ku qoraysaa sida uu u kala muhiimsan yahay waxa weeye hadda waxaad rabtaa inaad akhrisato buug yar oo sheeka ama novel sida u taqaanid ama waxaad rabtaa inaad quraanka akhrisid quraanka iyo buugii sheekada isku meel ma galayaan midka muhiimka ayaad soo qaadaysaa asaga ayaad u soo hormarinaysaa markaas waxaad isku dayaysaa waqtigaaga 1 saac ama 2 saac oo kamid ah inaad waqtiga ka faa'iideysatid oo aad sameeysid waxyaalihii qodobkii labaad iyo koowaad hadda aan ku soo sheegay midka saddexaad waa in aad leedahay yool ama hadaf sida u taqaanid habda marka aan ku leeyahay yool ama hadaf waxaan ka wadaa waa in ay waxaan maskaxdaada ay ka soo godaa in aad adigu aad qabatid oo aad tahay qof ka soo baxaya haddii aadan weligaa yool ama hadaf aadan yeelan lagama yaabo inaad adduunyada horumar ka gaartid midka afaraad samee siday wax walba u kala muhiimsan yihiin oo ku kala hormar sida ay ugu muhiimsan yihiin midka shanaad iska ilaali waqtiga dib u dhigista oo inaad dhahdid waxaan maanta ayaan qaban ama bari ayaan qaban waa ilaa waad ku dhaqaaqdaa waqtiga isla xaadirka aad hadda taagan tahay inaad qabatid dib u dhigista waqtiga oo dib loo dhiga adiga ayay dib dhac ku keenaysaa ama aad ka caajisto ama aad waxyaalo kale hurdo iyo waxaas aad ku maqnaatid midka lixaad iska ilaali tuuga waqtiga waxaa laga yaabaa daawadayaal badan oo daawanaya inaysan garanaynin tuuga waqtiga waxaan ka wadaa tuuga waqtiga waa inaad aadid waxaan ka wadaa tuuga waqtiga waa inaad aadid meelaha malaayacniga sida fadhi ku dirirada asxaab badan aad yeelatid oo aad waxba aad ka soo kordhinaynin ku hadalka taleefanka internetka oo aad maantana ku mashquulsan tahay kuwaas ayaa la dhahaa waqtiga tuuga kuwaas waxaynayaan ama waqtigaagii aad ku fakaraysa inaad wax qabsatay ma qabsan kartid intay kuwaas aad la xiriirto
waxaa kale oo jira wixii aad qabsan lahayd ayaad leedahay maanta meel hebla ayaan aadayaa waxaas mar kale waa inaan waxeeyaa ama aan soo qabtaa ayaa leedahay marka waa inaad iska ilaalisaan waqtiga tuuga waxyaabihii aan kuu soo sheegana aad ka ilaalisaa midka toddobaad oo ugu dambeeyo marka aad tilaabooyinkan dhan aad soo qaado waa in aad soo qaadataa qalin ilaan jadwalkii mar hore ayaad degsatay qalinkaad soo qaadanaysid waxyaalihii aad qabatay waa saxaysaa markaad saxdid wixii aadan qabanin isagana waa calaamadaysanaysaa si aad u qabatay waqtiyaasha dambe ee soo socdo isku day habeen walba markaad seexanaysid inaad naftaada xisaabisid maanta waqtigaaga sida aad uga faa'iidaysatay waxyaalo badan ayaad iska bedelaysaa haddii aad raacdid 7 arrimood waxyaalo badan oo naftaada aysan ku baraarugsanayn ayaad ku baraarugaysaa 7 arrimood intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waa ina salaamayaa dhammaantiin meel walba aad joogtaan sida aad muuqaalada xiga aad u daawataan insha Allah muuqaaladan oo aad waliba daawan doontaan maalin walba oo talaado ah iyo waliba maalin walba oo sabti ah si aad u daawataan muuqaalada xiisaha leh waa inaad saartaan subscribe si aad noola socotaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh